waxaan hadda ku jirnaa daqiiqadihii ugu halista badnaa muddo 10 sano gudahood bariga dhexe uusan soo marin. intaad hadda i daawanaysaan matooradaha diyaaradaha qarsoon B2 ayaa isku kululeynaya saldhigyada qarsoon ee gobolka, halka Tehran iyo hogaamiyaasha ilaalada kacaanka farahooda ay saaran yihiin badhamka gantaalada ee ku jira dhulka hoostii. dagaalka miyaa si dhab ah u bilowday mise waxaynu marqaati ka nahay khiyaanadii istiraatiijiyadeed ee ugu weyn taariikhda casriga? aan eegno xaqiiqooyinka iyo tirooyinka aanan marnaba been sheegin. arrintani ma ahan tababar ciidan oo caadi ah ee waa is-ururintii ugu weynay tan ilaa ay duulaankii Ciraaq sanadkii 2003. markabka ximbaara diyaaradaha USS Gerald Ford oo ah markabka diyaaradaha ximbaara midka ugu weyn caalamka oo dhan ayaa hadda dhex taagan badda Mediterranean-ka. dhinaciisa kale waxaa ku sugan USS Abraham Lincoln oo jooga badda Carabta. Iiraan waxay hadda u muuqataa mid af libaax ka ugaarsanaysa. Tehran si lama filaan ayay u shaacisay inay xirtay aagga ballaaran ee ku yaala koonfurta dalkaasi. sababtu maxay tahay? gantaaladeeda balastikada ayaa laga soo saaray baqaaradoodii. wararka sirdoon ee Mareykanka ay heleen ayaa sheegaya in la arkay gantaalada qoromshahar iyo sijiil oo lagu shubayo shidaal dareere ah. tani waa calaamadda ugu halista badan ee muujinaysa in Iiraan ay isku diyaarinayso weerar hore haddii ay dareento in weerarka Mareykanka uu noqon doono mid lama huraan ah. laakiin waxaa jira wax ka dhacaya daaha gadaashi. dhanka kale, inta Trump si cod dheer uu hanjabayo, fariimo qarsoon ayaa la sheegayaa inay sii marayaan Masqad. aqalka cad wuxuu u dejiyey waqti kama dambaysa dhamaadka bishan Febraayo, taas oo noqon karta tanaasul xanuun badan oo soo afjarta hamiga nukliyeerka Tehran ama jiximadii lagu balansanaa. dhanka Tel Aviv, Netanyahu ma ahan mid wax sugaya. heerka feejignaanta Israa'iil ayaa la sheegay inay dhaaftay xuduudihii casaanka. isbitaalada dhulka hoosi ku yaala waa la diyaariyey, hoygii gabaadkana waa la furay. Israa'iil ma rabto oo kaliya weerarka Mareykanka ee waxay doonaysaa isbedel iyo qaabayn bariga dhexe oo iyada ay maamusho. haddii weerar uu dhaco ma noqon doono hal jug oo kaliya ee waxay noqon doontaa duufaantii dabka. marka hore waxaa dhici doona weerar cyber oo lagu curiyaaminayo raadarada, kadibna mawjadaha gantaalada Tomahawk ayaa lagu burburin doonaa saldhigyada ilaalada kacaanka ee u qorshaysan Mareykanka iyo Tel Aviv. ujeedaduna waa in la weeqo awoodda Iiraan. warbaahinta Mareykanka ayaa sheegaya dhaqdhaqaaq aan caadi ahayn inuu ka socdo saldhigga Al-Cudayda ee waddankaasi Qatar. weli lama xaqiijin in amar la bixiyey, balse hawada gacanka Carbeed waxaa laga saaray duulmaadyadii rayidka ahaa. Moscow ayaa digniin ka bixinaysa waxa ka socda gobolka. Poland waxay muwaadiniinteeda ugu baaqaysaa inay si degdeg ugu baxaan gobolka. taariikhdu waxay ina tusaysaa is-ururinta ciidanka sidaan u badan in aysan ku laaban doonin saldhigyadooda iyadoo aanan ficil military ama heshiis weyn aan laga gaarin xaaladda. sawiro ay soo qaadeen dayax-gacmeedyada ayaa muujinaya in dhaqdhaqaaq weyn uu ka socdo saldhigga Hamadan ee waddankaasi Iiraan, in diyaaradaha dagaalka Suuqooy ee Ruushka uu geeyay waddankaasi Iiraan heegan buuxa ay ku jiraan. Tehran miyaa go'aansatay markaan in jawaabta aysan noqon doonin oo kaliya dagaalka wakiilada, balse uu noqon doono dagaal si foolka fool u dhexmara Mareykanka iyo Tehran. wararka ka imaanaya xadka Lubnaan iyo Israa'iil ayaa keentay cabsi hor leh. ururka Xisbullah ayaa gabi ahaanba faarujiyey goobihii ay ku sugnaayeen. waxay galeen aamusnaan. qubrada dagaalkana waxay ku macneeyeen diyaargarow dagaal iyo in gantaalada xisbiga ay sugayaan inay ku soo hoobtaan dhulka gumaystaha sidii kol horeba dhacday. aan eegno suuqyada caalamka oo gilgilanaya. qiimaha saliidda iyo dahabka ayaa hadda sare u sii kacaya. kuwa wax maalgashta ayaa isaga baxaya gobolka iyagoo og in marinka Hormuz uu isu bedeli doono quburaha maraakiibta shidaalka, taas oo macnaheedu tahay in dhaqaalaha adduunka saameyn ay ku yeelan karto. su-aasha hadda taagan ee lagu falanqeynaya qolalka warbixinada ayaa isweydiinaya aaway Donald Trump. warar hoose ayaa sheegaya in Donald Trump uu u guuray Mar-a-Lago oo California ka tirsan, isagoo ay la joogaan Mark Rubio iyo taliyaashiisii amniga qaranka si ay u qiimeeyaan xaaladda, welibana qariirada istiraatiijiga ay u dejiyaan. Trump wuxuu u muuqdaa mid doonaya guul degdeg oo nadiif ah oo hal jug oo dhabarjabis ah oo ka dhigta hoggaanka waddankaas Iiraan mid ku qasabta miiska wadaxaajoodka iyagoo jilicsan inay dib ugu soo laabtaan. laakiin xisaabtu ma la jaan qaadi doontaa xaqiiqda? dhinaca kale, warbaahinta Iiraan waxay soo bandhigeen sawiro magaalooyinka gantaalada ku jira buuraha hoostooda. fariinta Tehran waa mid iska cad.
si kastoo awooddiina burburinta ay u weyn tahay, gantaaladeennu waxay ku qarsoon yihiin boqolaal mitir oo dhulka hoostii. Israa'iil waxay dhankeeda markii ugu horeysay ay howlgelisay nidaamka laysarka loo yaqaan Iron Beam. Tel Aviv waxay og tahay in cirka laga yaabo inay ka soo hoobtaan kumanaan gantaal oo ka imaan kara Ciraaq, Yemen iyo Lubnaan si loo jahwareeriyo loona dhaafo nidaamka difaaca Iron Dome. wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa si kulul ugu dalbatay Washington inay ka laabato godka qarkii oo hadda ay taagan yihiin. Shiinuhu wuxuu ku tiirsan yahay saliidda waddankaasi Iiraan. Weerar kasta oo halkaas ka dhacana wuxuu noqon karaa dagaal dhaqaale oo ka dhana Beijing. Shiinuhu wuxuu u arkaa waxa ka dhacaya Iiraan scenario-dii Venezuela oo ku celisa, mana ogolaan doonto Beijing saaxiibadeeda tamareed ee ugu weyn bariga dhexe inay dhacdo. Beijing hadda waxay Washington u sheegaysaa hal abuurka militariga ee ka dhana Tehran inay u arkayso hanjabaad toos oo ku wajahan maska duulaaga Shiinaha Chinese Dragon. aan eegno duulimaadyadii rayidka ahaa. Shirkadaha waaweyn ee duulimaadyada rayidka ayaa baajiyay duulimaadyadoodii Ciraaq, Urdun iyo bariga Mediterranean-ka. Aamusnaan ayaa qabsatay gobolka, qof walbana neef ayuu ceshanayaa isagoo sugaya iftiinka ugu horeeya. Wadooyinka Tehran iyo Tel Aviv noloshii caadiga ahayd way istaagtay. Dadka ayaa cirka eegaya cabsi iyo feejignaan darteed. Kama hadlayno oo kaliya tirooyinka iyo istaraatiijiyadda ee waa malaayiin qof oo noloshoodu ilbiriqsi gudahood isu bedeli karto. Warar sirdoon ee la soo dusiyay ayaa sheegaya in gujisyada nukliyeerka Mareykanka ee badweynta Hindiya ku sugan ay galeen xaalad heegan buuxda ah. Gujisyadu waa kuwa aan muuqan, laakiin gantaalka ay ridaan la arki karo wax burburintiisa. waxa ugu adag ee saacadahan la arkayo waa aamusnaan. Hogaamiyaashu waxay ku sugan yihiin godadkoodii hoose oo la shubay. Askartuna qorayla yurar ayay noqdeen. Dunidana waxay sugaysaa tanimo waxay noqon doontaa habeenkii ugu dambeysay nabadda, mise beri qoraxdu waxay ku soo bixi doontaa xaqiiqo cusub oo xuduudda lagu sawirayo dhiig, heshiisyadana lagu qori doono burburinta magaalooyinka. Dheere Suites waa dhismo si casri ah loo dhisay. Dheere Suites waxaa ka heli kartaa apartment firaashan iyo kuwa firaaqa ah oo aad adiga alaabtaada soo dhigan karto. sidaas oo kale qaar ka mid ah apartmentyadani waxay leeyihiin double master's room. Dheere Suites waxay awood u leedahay inaad iibsato ama aad kiraysato. haddaba dadka iibsada ama kuwa kiraysanaya waxaa loogu talagalay adeegyo si lacag la'aan ay ku heli karaan, sida cafe shop, qolka shirarka, meel carruurta ay kugu ciyaaraan oo ammaan ah, mini theater, qolka daabacaadaha, qolka jimicsiga, sauna ama xamaamka maqribiga. CCTV camera ayaa guriga meel walba kaga xiran oo yaanan hilmaamin 2 baarkin oo waasica ayuu leeyahay dhismahani. haddaba Dheere Suites waa another level apartment. wuxuuna ku yaalaa wadada Jayga Airport-ka ama dhabarka dambe ee Turkish Macaarif School Expol Technico. wixii faahfaahinay dheeraad ah fadlan kala xiriir lambarka WhatsApp-ka shaashada kaaga soo muuqanaya.